مواد الصومالية دستور كان عنو يفتكرين عروض تدو يفتكرين كويس إذا لو يفتكرين مركا إن مارتي إن كيانا نجبر بريكة إن كان روح وش دستور وصوره هذا في إنجليزي هذا هذا كان مترال وغيره وعن تي صومالي محتاج صندوق تتقو عليه دستور كان وقع عليه دستور كان الصومالي هذا كمان يكي رالك هو وحامل الودي استاك يكي رالك أي ماسكه سيبر حواي ميشان حرية وايد حرية شخصية وهي كبتاي وحال ميشان حتى أكون جوجو إسماعيل بايدي سويدي مركا دستور كان سيدا شيء دستور أو حتى عد كلوقا باي معه مدحدي أو دستور كان كسوشياليست إنتي وفريان by the way كل جود باجولا TFG 1 TFG 2 TFG 3 كل جود باجولا مركا فضل رأي أقولنا بجرنا مالك تلقى الريفرندم لو قال مالك تاس مالك لو قعدت أن تاعنا سجنا كشنك فتونا تاعنا لكن حتى مالجو رأيين كاري محصلة عبد الله هذاكوي السلام عليكم دومي وما سيء عليه وأروح constitution كان controversial بالمولين المولين ما هي ضد الآخرين أروح مجرد كأذار دايت علي وهم كيري وحلقاتها هنا حتى قلنا قلنا بهذا الكتاجية هنا دت الله برني لكن كل جيس بتقول عيسى أي قيميسا إلا مرة قف كان أخيرنا هذا كما قالوا وقت ما هي قف أخيرنا كل يوم وحبوك كتير بدنا رأيه تعاون متجود إسماعيل رنتي وفكرة في عن مشروع إسماعيل قاب هذا كقرنا هو كالدونان كلا واحد فيليا رئيس الحسين دستور وحن هيسنة دتك الصومالي عد بيبه ولحدن كي يكودي عد الصومالي ودن أقاطع ودلك يونتري لوغة وقف الصومالي وكسته وقت قاعد شوي عد أقاطع كان وبروبلم كي سبديه ووقت قاعدين دونا Soomaaliya hadda kala tagtay oo meelo badan u ka qaybsantahay dawladana laga saarayo ku meel gaarnimada markii hore ku shaqaysan oo kaas aragta waxa hadda looga baahan yahay karan baa ku yaal amendment ma ku soo bixin president ka soo qaad federalismada waxa la yiraahdo waa qodob ku daray madam أساسا وبحياة لتلك القلمية مدى اللغات وستسن شبكة وآد لغة هذي بدون شركنا حسين سؤال بدن باكتاغن آدو controversial درب كان لنا هاي immigration بيليه سواني كمان ما كن بيجرين كرنو مريكا وباهن ما باو ويسوي immigration كله ما ده كودا الصومالي هرت ما هنا نسكو دون ساعة citizenship كبها دون historical لغة لبا قدم مدوا عليه دريت دي سانوين اللي أنا ما أقول برتة وقفوا إيبيس أما هتشوف إثيوبيا أما هتشوف كينيا أما هتشوف بحكي جيبوتي اسكو ديل ويا اسكو دادو قدم كذا بعد وقالش يقولوا ده كلش ولا ولا historically ولا ناس بس ده وش هي عبدو شيء هدايته وساس وي هنا لو ده قدم بسلمه واحد كان هو انترست او بيزنس يذكر لك بتصدق وحسوي قدم كان هو بلارين قدم بده هو وين وي تستورك ليه
details badan baa ku jira oo farihii ka batay waxaan soo jeedin lahaa in laga dhigo immigrationka qodobkiisa dastuurka lagu daro laakiin shay hadda loo suubiyo oo hadda detailskan badan oo meesha ku jira aan la raacinin aan idhaahdo dalku immigration wareeg sida loo qaadanayo citizenshipka sida mataqaanaa lagu helayo xuquuqda sida uu yahay iyo cidda qaadan doonta dastuur kale waxaa sheegaya sharci kale sheegaya oo dalku u suubinay oo qaadan kara hadduu rabo dhowr sano marka la habeynayo marka qodobkaas saasaan uga bixi lahaa runtii intaan qodobka kale u gudbin hal mid ayaan ku celin lahay qalad in lagu fahmo ma rabo dastuurkaan ani malihin adeegaan ka ahay idinkaan idin keenay ismaaciil raacidiis aad u fiican yahay laakiin tan aniga keliya aan ku diidanayo waxaa waaye in maaragtay maanta hadda meeshaan referendum aan ku qaadno hala odayo kastoo maarado hoosheeda la gaaray marka sidaas darteed raalli liga aado fadlan nin walba ra'yigiisu xor buu yahay sidaa ujeedin laba cameramanna meesha joogaan laba wiilna way qorayaan marka dastuurkaan waa ku celinaya annagaa iskale soomaaliya iskale qof kaloo len mar haddii aadan meeshaad ka rabina wixii haddii aan idhaahdo hal qashinka lagu tuuro waa dhibaato midda aniga aan rabo inaan ku daro dastuurkan waxaa loogu baahan yahay war dad baa isdagaalay dadka markay isdagaaleen dadaa qori qaatay waxay dhahen annaga moogiye qof kale lala hadli karna taariikhdaas badili karnaa ya nimankii yaa shiray waxay dhaheen annaga kii hore iyo lixdankii iyo sideetantoodii muraad bakeli koox suwan samaysanayna maxaa waa federalism allah magaran iyagaa umada ku qortay waxay waxyaabahay ku hisheen meeshay ku qorteen charterkii ayaa halkaan bilowgiis asalkii hore charterkii ay ku hishiyeen ayaa asalkiisi beesi u ah kan mar sidaas darteed haddii hadda aan dhahno maarkiima maxaa lahaaya maxaa dastuur loo baahanyahay aniga waxaan qabaa wax walba waa la sixi karaa kutub qur-aan maaha waa ongoing document amendmentaa lagu sameeyaa maalin kastaa la sameeyaa please nin walba markuu meesha imaado si xor ah codkiisa u dhigto qodobka u dhigi doono waa diinta islaamka diinta religion su-aal maartaa ay qodobka diinta ayaan ka hadlaynaa fadlan inaa akhrisatee ma aqaan waxaa waaye state and religion ku leeyahay fundamental rights waa ka moodayna marabtaas ka hadlaya bay kaasaan kuu sheegaya kaas inaan ani waxaan dhilahay aan ka tagno sababta waxaa waaye basic oo dad soomaalida isku raaci karaan waaye tan diinta inay diinta islaamka ay tahay diinta aniga su-aal waan weydiin karaa laakiin aniga su-aal oo aniga intaan ka silent kaaga sheega maayo kulligeed maaha ay su-aal aad muhiim u ah waaye waa lagu sameyn karaa laakiin dadkii adiga hadda maanta taariikh kastoo lasoo maro dad baa madaxa noqday lixdankii dadaa madaxa ahay 69 waxaan qabnay golaha sare ee gacanka hadda waxaan qabnaa 2000 maxaa lahaaya markii 2000 la maraayo waxaan qabnay dad warlord loo iigiyaa waan ku gaar baba in hadday dhihi lahayn markaas ay dhihi lahayn halkaan ayaa dastuur noo ah kan ayaa dastuur noo hadday dhihi lahayn amendment aan ku samaynayna intaas ma isla gaarnay laakiin waxaan kuu sheegaa historically halkaan meel badan u soo maray maaragtay marka su-aasha annaga laguma xirnay waxay ku xiran tahay dadkii markaas warqadaha saxiixay ayaa cilada iska leh okay that's right magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiwahaab xaashin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu
waxaan ahay muwaadin Soomaaliya sida Ismaaciil iyo Xasan Balnabad baa yiraahdeen sharciga kan sharci ma ahan ilaa uu dhaman galo laakiin proposalka kan dastuur waan akhriyay completely waan akhriyay sababta aan akhriyay waxa weeye just to find out inay yahay waxaan aniga personally accept gareeyay kan ummadda Soomaaliyeed inta joogtay inta maqanba waxaan idin sheegayaa horta waxaan ka doodaynaa waa dalkeena iyo sharcigeena anaga gacmeena markii anagu aanu dhisan weynay sharci 22 sano kii inoo yaalo islaamka iyo kii maadiga aanu cagteena ku burburino qori u qaado haddii dad kale intay isku tageen waqti iyo taam iyo lacag ay geliyeen waxa iyagu ay rabaan inay inoo soo qoraan waxay rabaan inay inoo keenaan sankana naga geliyaan we have no other choice or alternative waxaa la yidhi markaad adiga marka waxaad rabtaa daawooda waxaad ka badan weydaa layaaba yes dastuurkii 1963 yes amendments ugu sameeya sharci Soomaaliyeed yes bidiinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida qaabilsan no less than that aniga personally aan accept gareeyo laakiin question waxa weeye intaan halkaan fadhiday inta maqalka capable ma unahay wax la yiraahdo Somali unity Somali nation aan sameeyo Soomaaliya shan qaybood oo waayo hore kala gooday haddana toban bay u sii kala socotaa intaan waqti badan tahay isaga qodina we have to accept facts and reality in our reality waxa weeye Soomaalinimadu inta hadda shaqada soo qorto ogtiina Hebelland iyo Jigland iyo Hawland iyo Faadimaland iyo Xisaabaland ay ku jiraan waxa weeye they refuse in hatta Soomaali hal qof uu hogaamiyo oo midnimo Soomaaliyeed iyo dowladnimo Soomaaliyeed la dhiso each and everyone magac uu talab xumeeleysta ku fiirin my qabiil is the president and the president halkeeba usoo caqliga iyo maskaxdiga weydiiyay waqtiyaana isla luminin in realistic thing qodobka ah oo hadda la yiraahdo laga doodo diinta islaamka wuxuu leeyahay diinta islaamka waa qodobka kaliya ee diinta dadka iyo dalka lagu maamulo haddana qofka akhriyo haddaad u fiirsato hoos markaad u sii dhaacdo wuxuu ka hadlayaa western style reality annaga Maraykan baan and we are proud to be part of America laakiin America waxay choice loo siisay to have our own rights religion and maanta kaniisaddan waxaan bedeli karnaa masaajid halkan waxaa ku yaala diin kale laguma firin karo Soomaaliya yes I agree with it laakiin on the same token waddankan aan citizenka ka nahay kaniisaddan masaajid bedeli kartaa marka waxyaalahan in loo jibaamo in aan aqsad maskaxda bini'aadamka aan ku wada karin baa halkan ku jira annaga muslim baan nahay laakiin dal ma hayso cidna ma adeyn karno gacmaheena ku burburin annaga dhulkeena yaasay inta soo hartay hadda la kala burburinaya federaalkan ugu jeedaan oo nimankaan isku soo kakobeen ciddi rabtaa isu keentay yaa la raali gelinaya Hebelland Jigland Island Hawland qaar baa lagu baryaya warka goynina nagala soo qayb galo marka at least question waxa weeye yaa saxiixinaya dastuurka ninkii mas'uulka waa dowladda federaalka TFG information macnaha dadka sharcigan hirgelinaya oo TFG meelo badan bay tagay af baa laga hayaa recording laga qoray oo ay leeyihiin hasab baan ku hirgelinayna cidna aftu weydiin isla second macnaheedu waa shanka mister baa inta Soomaaliya tashay ma hadda meel la aadaysa oo tashanaysa oo hadda meel la tagaysa caqligeena iyo taamkeena iyo maskaxdeena iyo aqoonteena ayaan ku lumin toban warbadood wax ku yaala it makes no sense waxaan waa la bedeli karaa baarlamaanka Soomaalida bedeli karaa markii dowlad qalato awoodina iyo caqligeena iyo maskaxdeena isku geeyay Soomaaliya midnimadeeda sidii looga shaqeyn lahaa don't waste our time over here warqadan waa amendment waa ku samayn karaa baarlamaanka bedeli karaa madaxweynaha bedeli karaa anything we don't need later on will be taken up because dadkii dalna matalan dooranayna laakiin waxba ma haysano Soomaaliya caqligeena iyo maskaxdeena ka shaqeysa walaalkay waa mahadsan yahay intaan u gudbin qofka labaad hadal yar ku daraya horta waxaa roon caqliga la isticmaalo dastuura inayna waa xun yahay waa fiican yahay maalin kasta waxaan tagnaa Jigland oo la sameynaya xafladda waa markii saacadan tunaa lacagana laga rubiya waa tagnaa marka Soomaali qeybteeda inaan qeybino burburino annaga we are part of it maanta in inta la yimaado la yidhaahdo dastuurkan xaaraan waay war annaga waxaan u keenay dastuurkan ku xaaraan yahay please raygaa kadib
laakiin waa is ognahay Soomaaliya